shirweyne lagu taageerayay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye ayaa dadweynaha deegaanka Shanshacaade halkaasi ku soo gabagabeeyeen. shirweynahana ayay ka qayb galeen salaadiin cuqaal siyaasiyiin iyo waxgaradka deegaankaasi, waxaana si mugle loogu taageeray xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo xisbiga kulmiye, iyagoo dhammaan waxgaradkii iyo mas'uuliyiintii halkaas ka hadashay ay si weyn u bogaadiyeen madaxweynaha Soomaaliland, xukuumaddiisa iyo xisbigiisa kulmiye, iyagoo si gaar ah u ammaanay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan oo ay ku ammaaneen waxqabadkii uu ku suntanaa waqtigii uu xildhibaanka ahaa, iyagoo madaxweynahana ku bogaadiyey tallaabada uu wasiirka kaga dhigay Cali Marreexaan. cuqaal salaadiin xildhibaano haween iyo waxgaradkii kala duwanaa halkaasi ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa soo dhawaynaynaa maxamed axmed maxamuud Siilaanyo madaxweynaha iyaga waxaanu ku soo dhawaynaa gacmo furan iyo qalbi furan iyo labada gacmood furan ayaanu ku soo dhawaynaynaa axmed maxamed maxamuud Siilaanyo waxaanu soo dhawaynaynaa wasiirka iyaga Cali Marreexaan. haddii aanu nahay degmada Shanshacaade waxaanu taageersanahay xisbiga kulmiye, waxaanu taageersanahay Axmed Maxamed Siilaanyo, waxaanu taageersanahay golaha dhexe, waxaanu taageersanahay codkii ay u qaadeen Muuse Biixi Cabdi, intaba waanu taageersanahay wasiirka Cali Marreexaan, waxaanu ku taageersanahay waxqabadkii uu noo qabtay. wuxuu noo qabtay saldhigga uu isagaa sameeyey, booliskii buu keenay, wuxuu keenay gaadhigii buu keenay, wuxuu noo sameeyey xanaanadii, wuxuu noo sameeyey dayrkii iskuulka. ninna waxa uu qabtay lama dafiri karo. waxaanu taageeraynaa wixii ka tirsan xusbiga kulmiye oo dhan baanu taageeraynaa oo taageersanahay. xusbiga kulmiye baanu taageersanahay, awalaana kuwii taageersanaa baanu nahay. degmada Shanshacaade anigoo ku hadlaya afkooda waxaan cadaynayaa taageerana aan u muujinaynaa xisbul xaakimka musharaxiisu yahay Muuse Biixi Cabdi. halkan waxaan ka salaamayaa dawladda sharafta leh iyo magaalada Shanshacaade. Cali Marreexaan baanu u hambalyeeynaa ee deegaanka wax badan u qabtay baanu u hambalyeeynaa. waxaanu ka sugaynaa wixii uu dambe uu noo qabtana waanu ka sugaynaa. waxaan halkan ka salaamayaa xusbiga kulmiye madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo, Muuse Biixi Cabdi, Cabdiraxmaan Saylici. waxa la yidhi Soomaalidu waxay tiraahdaa geela ku tidhaha iyada hore cid adag iyo cid ma ku lahayd. qodobada shirka ka soo baxay haddii aynu guud marro oo yartaa taabano inaynu isku xukumo diinta islaamka baa ka koowahay in wixii waxinagu leh aynu waxooda siino, inaynu deegaanka aynu la noolahay ee deriska aynu wanaag kula noolaano, in la ilaaliyo deegaanka. qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay kuwaasay ahaayeen. waxqabadkiisa marka aad ka soo qaado magaalada Shanshacaade oo magaalo aad u balaanana goor habeenu soo maray wafti isagoo wata wuxuu maxaa u baahan reer Shanshacaade wixii aynu u baahnayn. maalintii uu Hargeysa tagay maalintii xigtay ayaa laynoo yimid oo laynoo qabto wax ka mid ah dayrka imika aynu dhex fadhino. waxaanu ku soo dhawaynaynaa gurigayagii waa gurigaagii. waxaanu ku soo dhawaynaynaa intii aanu madaxweynaha hadda gacanta talada ku haya aanu ku soo dhawaynay ayaanu ku soo dhawaynaynaa. waxaad naga helaysaa musharax intii Axmed Siilaanyo oo naga helay iyo in ka badanta. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.